هذا الجديد رئيس الوزراء حسن علي خيره habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuq-maasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dawladda hogaamiyo wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida 2007 hadii Ilaahay yiraahdo bisha December 31 2017 December 31 hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkan waa ka sheegaya hadii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December hadii aad ciidan tahay iyo hadii aad shaqaale tahay hadii aad ka shaqeyso xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaadu uu ku socdo oo xaq u leedahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa u jeediyay madaxda dawladda Soomaaliya in dalkan aan laga dulaalin loona baahan yahay in dalka loo adeego dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan haday aqbalaan inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn in dalkan aan laga qowleysan in dalkan aan laga dulaaleysan in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteena aan leenahay in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh dal dekada leh dal bad leh dad khayraad leh dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan dal meesha uu ku yaala adduunyada isku haysato حسن علي خيره ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynaha hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dawladnimada Soomaaliya waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaarayso haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna haddaad rabtaan nololtii hore ka duwan dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakuleynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliya xilligan ku horgudboon ay kamid tahay deymaha lacageed oo gaaraya 6 bilyan oo dollar taas oo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho